madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan wafdiga ballaaran oo la socda madaxweynaha wasiirada xildhibaanada siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta kale badan dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada madaxweyne soo dhawow hadii wafdigaaga aad baan ugu faraxsanahay waan kaga mahadcelinaynaa inaad noo timaadeen la isugu yimid shirkii wada tashiga dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ka dhacay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb shirkaas oo aan rajaynayno inay ka soo bixi doonaan wax ayaha Soomaaliya u fiican waqtiga iyo xaaladda hadda lagu jiro oo dalku marayana ku aadan aan tashigiisina hadda uu halkaan ka furmay waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo wafdigaaga ku soo dhawaada Galmudug ku soo dhawaada caasimaddii Dhuusamareeb waxaan leenahay maansho wanaagsan soo dhawaada shirkan wada tashiga Soomaaliya wax badan bay ka sugaysaa ama ay ka rajeynaysaa in inta laga rajeynayo laga helo ama ay ka soo baxdana waa rajeynaynaa waxaanan ku kalsooni badan ku qabnaa dadaal badan ku bixinaynaa in law aysan rajada iyo waxa dhagaha iyo qalbiga ummadda Soomaaliya u fiican inay ka soo baxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay madaxweyne adiga wafdigaaga ku soo dhawaada gurigiini ku soo dhawaada deegaankiini ku soo dhawaada dadkiini السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعن رواينا أجمع هذا عليو مرك هوري سلام كد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في Galmudug قرار Dhuusamareeb soo dhaweynta aad iyo aad oo qiimaha badneed ee soo dhaweeyeen aniga waftigii ila socday oo aan isleeyahay waxay ahayd waqti munaasaba xilli roobna da'ay qabowna uu jiro waan ka cudur daaranaynaa soo daahistaan soo daahna iyo dadka inta badan garoonka joogay culaysku ku dhacay taa madaxweynuhu adiga wafti adiga martidaada wasiir golaha wasiiradii xildhibaanadaada iyo dadka reer Galmudug gaar ahaan reer Dhuusamareeb waan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii aad u kulleyd ee qiimaha iyo qadarinta lahayd ficlan waxaan dareemaynaa inaan guriganagii oo maanta aan isleeyahay reer Galmudug iyo dawladda cusub ee Galmudug laga soo doortay ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqeynaysaa waxay nasiib maanta u heleen shirkaani inuu ku soo hagaago xilligan oo Dhuusamareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo wuxuu noqonayaa shir taariikhda galay waxaad xusuusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la odhan jiray waqtiyo adag oo kala guur ah Soomaaliya maanta xaaladday ku jirta waan iska garanaynaa waqti iska yara adag waddan walibana markuu xaaladda doorasho u soo dhawaado waxaa iska bilowda karays siyaasadeed iyo waxbaa taagtaagma laakiin maanta Soomaalidu waxay aada u soo wada fiirinayaan Dhuusamareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn dalow waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajeynayo waliba inay wax fiican ummaddu dhagaheeda u waxaysan yihiin oo Soomaalinimada iyo Soomaalidaba u fiican way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikh inaad maanta shirkaa martigelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo waliba waqtigiinuna hadda cusbaa xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna howlo badan hadda ku jiray iyagaan ururin lagu jiray inaad isa soo xilqaantaan ood kulli intaad soo ururisaan culayskaas oo idinku dhaco waxaa ka dhalan doonaa ka fiican aad baan taas idinkaga mahadcelinaynaa waan rajeynayaa siduu walaalkay sheegay Axmed shirkaan ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyadu ma aha shir dhib iyo shar iyo muddo midna ka shaqeynaya waa shir dastuurina ah xaggan haddii la fiiriyo ay xaq u leeyihin inay shiraan ta labaadna ay yihiin odayaal mas-uuliyadda waddanku ay saaran tahay oo bal in la tashado oo laga tashado xaaladda waddanku maraya iyo maxaan horay tallaabo u qaadnaa waana rajeynayaa insha allahu shirkaasi markuu furmo
dadka soo fiirinaya Soomaalidu dareenkay qabto inaanan riyadooda beeninaynin wanaagga ay ka filayaan inuu ka soo bixi doono haddii Ilaahay yidhaahdo. aad baad u mahadsantihiin. waxaan u malaynayaa war wuu dambeeyaayo war markii wax la is yidhahdaa wax lasoo sheegi doonaa, laakiin inaan idinka mahad celiyo inta yada joogteen iyo dhismaha durba aad madaxtooyadii dhisteen tallaabooyinka hore u qaadeen. aad baan idinkuna ducaynayna idinkuna hambalyeynayna shaqada fiican ad haysaan. waad mahadsantihiin.